saaka waxaan halkaan isugu nimi gobolka xarunta gobolka bari guddiga amniga heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaran intaba lagaga hadlayo amniga gobolka gaar ahaan magaalada Boosaaso shirka qodobo badan ayaa la soo qaaday oo ah xuseeya amniga magaalada Boosaaso oo bariyahan dhowr shilo kala dameeyay ee ka dhaceen sidii wax looga qaban lahaa go'aan baa laga soo saaray waxa way adkeynta amniga magaalada inay ka wada shaqeeyaan dhammaan ciidamada amniga oo gobolka degan iyo hay'adaha sirdoonka intuba shirkii wali waa socdaa wax qabadkeedii iyo si qaabka wax loo qaban lahaana wali waa socotaa insha Allah waxaan baransanahay bari iyo wixii ka dameeya inaan go'aan tafatiran ka soo saaro wada shaqeynta gudiyada heer amni xaafadaha magaalada iyo ciidamada amnigu qaabkii u wada shaqeyn lahaayeen iyadoo guddiga amniga gobolka uu shirgudoominayo anigana aan goobjoog lahay taliyaha ciidanka booliska inaan soo saaro haddii ilaahno qaab lagu wada kalsoon yahay lagu wada shaqeyn karo lagu hawlgeli karo haddii ilaahay idmo inaan soo saaro wixii su'aalo kale wixii kale dib baan ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo ciidamo farbadan baa magaalada ciidanka birmadka ku kala too aan saaka booqanay gobolka Soomaaliya ciidankaas ciidan magaalada ugu tala gashay amnigiisa waa jirtaa haddii ilaahno waajib bay leeyihiin kolley waajibkooda ciidan ahaan haddii media ka sheegi maayo laakiin waa jiraan ciidamo magaalada yiri oo ciidan birmada oo anigu la socday oo aanu keenay inay magaalada wax ka qabtaan ka gudubay wixii su'aalo kale diyaar baan u ah hadalka hadda aan noo sheegtay iyo tigisteedii way kala duwanaanaysaa ciidamadu waa booqanay waa soo aragnay saaki goobtay degan yihiin iyo tira ahaantay tirada annagu yaana sheegi laakiin intay yihiin waan soo aragnay marka ciidamada imaanshahooda magaalada Boosaaso bal waxay qabanayaan noo faahfaahin maxaa sababay xagga amniga looga halka bal noo yara jira ciidanka waxa magaalada loo keenay inay amniga magaalada wax ka qabtaan waajibaad bay leeyihiin waajibaad ciidan bayna leeyihiin waajibaadka ciidan ay leeyihiin ma hadda midaan media ka sheegayo anigii baa taagan oo taliye ciidanka booliska ah ana la socday meesha keenay wixii amar ay qabanayaan ana siinaya haddii ilaahadmo marka waajibka shaqo oo loo soo idmaday insha Allah waxaan rabaa magaalada Boosaaso amnigeeda inay wax ka qabtaan ciidamadan tababar xagee ku soo qaatay xageesa saldhig ahaan markii hore oo ahayd oo laga soo raallahu ciidan booliis oo ciidanka birmadka booliiska ah bay ahaayeen magaalada Boosaaso keenay aniga la socday iyo taliyihii birmadka waxaana u keenay inay amniga magaalada Boosaaso sugaan gacanta maxaa la dhahaa gacanna ku soo celiyaan amni darrada ka jirta magaalada ay wax ka qabtaan amniga lana shaqeeyaan ciidamada amniga oo magaalada jooga falalka amni darrada ah bilii ugu dambeeyay oo ku soo badanay deegaanada Puntland Boosaaso marka laga tago meelo kale ayaa jira magaalooyin kale oo falal noocaas kale ay ka dhaceen iyaga maxayna ka qorshaysan talaabooyin aan ka yaabaan iyagana qorshaan ka gaaray haddii ilaahadmo xalay daljir baa wareystaan u malaynayaa aamina maxay ahayd aamina ladan aad iyo aad bay runto waxa waaye qof maxaa ahaa suxufiyada waaye su'aalahay weydiisay su'aalo aad u qiimo badan bay ahaayeen annaga waa uga jawaabay dhammaantood waa dhacdaa adduunyada waxa ka dhaca falal New York bay ka dhacaan waxay ka dhacaan Paris bay ka dhacaan laba wiil oo foodeerayaal ah oo bamba ka soo tuuray meel luuqa oo bastoolad Belgium soo riday wax macna loo yeelo ma ciidanku maalmo howlgal bay ku jiraan waxba laga cadawga laga qabtaa waxba cadawga laga baalkeeyaa haddii ilaahno Brito 4 saac iyo wasaaradda amniga inoo muddo wax qabadka ciidanka Brito ogaan doontaan